waxa aan dareemay inaan dad ka dhashay Soomaali la yiraahdo. Leila Abuukar waxa ay kamid tahay shakhsiyaadka u tartamaya kursiga baarlamaanka gobolka Queensland ee dalka Australia. Waxaana ay ka soo tartamaysaa degmada Yongabili oo ay ka kooban tahay 8 xaafadood. Waxa aan weydiiyay sababta ay xaafadaasi isaga soo sharaxday. Waxay ugu qasbay xaafadii markaan imid wadanka isoo dhaweysay dadkii opportunity-ga faraha badan isiiyay oo aan dareemay wadankii inaan kamid ahay ayaan rabaa inaan u shaqeeyo. Jaaliyadda magaalada Melbourne ayaa kulankan soo dhaweynta u sameeyay iyadoo uu kala soo qayb galay qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalka Australia Yonis Xaashi oo good friends aan nahay Consul Generalka dawladda Soomaaliyeed ee Australia jooga. waxaan isugu nimid munaasabadan waxay tahay soo dhaweyn iyo taageero aan u fidinayno Leila Abuukar. waa gabadhii ugu horeysay baan oran karaa ama qofkii shakhsi Soomaaliyeed ugu horeeyay. tani waxay nagu dhiirigelinaysaa haddii Ilaahay mo inaan laftayadu baraarugno wadadii Leila ay isku daydeen inaan isku dayno haddii Ilaahay. Leila waxaan kula dardaarmayaa walaashay siyaasaddu inay adag tahay, inay dhib badan tahay, inay qodxa badan tahay. wixii haddaan loo dhabar adeeginna meel lagu ma gaaro. dadka xisbiyada kaleeto aan waliba aad ula shaqeyno marna ma dhicin inay noo ogolaadaan inaanu qaadano door la mid ah doorka Leila ay ogolaadeen xisbiga la yiraahdo Liberal National Party. I believe Soomaalidu conservative inay yihiin dad shaqeysta xamaasha individual badan hanti jecel xoolo raadsada very active. anagu ma nihiin dad jiifa laakiin waxaan nahay dad very active. xisbiga liberaalka waa laga cabsadaa inuu cabsida qabo isagu keensaday iyo inuu ma kala garanayo. Tony Abadna dadkoo dhan markay maqlaan way ka ashaataan. Leila gabadh wanaagsan baad. qofkii wanaagsan Ilaahayna uu kaalmeynaya dadkuna uu kaalmeynaya. Markii aan wadanka imid waxyaabo badan baan eegay. waxaan maadaama hadda wadankii aanu joogno iska fadhi horta maaha dadka inaan dhex galo. qolooyinka Liberal iyo National Party-ga markaan u tagay waxaan aad u dareemay inay xishmeeyeen, inay ii arkeen qof iyaga la mid ah. taasna wax aad muhiim u ah ayaa aniga ii ahayd. go'aankaygana markaas ayaan go'aansaday jimciyadda inaan member ka noqdo. dumar haddaan nahay markii introduction ka yaraan ka bixinayay waxaan Leila waa gabadh Soomaaliyeed, waa gabadh hooyo ah, caruur haysata, aad bay u culus tahay hawshii guriga, caruurtii iyo waxbarashadoodii ayadoo waxbaranaysay, ayadoo siyaasadeediina u ordaysay inay ka qayb gasho oo tiri qayb weyn baan rabaa inaan ka qaato anigana keega slice-kayga hal ay siiyo. sanad ka hor ayaan Leila kula kulmay gobolkaasi Queensland waxaana ay sheegtay xilligaas inay u tafaxeedanayso sidii ay dalka uga mid noqon lahayd mas'uuliyiintooda. 7 cisho ayaa ka hartay in riyadeedii ay rumowdo. Leila waxa ay timid dalkan Australia 1997 iyadoo qaxooti ah. haddii ay guuleysatana waxay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay Soomaaliya Muslima isla markaana Afrikaana ee hesha kursi ka mid ah kuraasta gobolka Queensland isla markaana kaalin weyn ka gashay guud ahaan dalka Australia. Ibrahim Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.